استفاع يلا يمرون دقنت ويانه تنداس بينه ودا داخلانيه ديغراره xoog la ku dhacay dib xasuustaane dumarkii caruurta ku filan doorkan maanta ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda ayaa maanta bulshada Burco kala soo qayb galay xuska sanad guurada 27aad ee 18 May boqolaal kamid ah bulshada oo ku labisan calanka Soomaaliland kuna dhawaaqaya hal ku dhigiyada maalintan u gaarka ah ayaa socod luga ku soo maray jidadka halbowlaha oo ah magaalada dabaaldega 18 May ayaa waxa ka qayb qaadanaya jaamacadaha gobolka iskuulada ururada arrimaha bulshada ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee laamaha dawladda ciidamada qaranka iyo booliska gobolka Togdheer oo iyaguna dawladda ku soo bandhigay baaxadda garoonka diyaaradaha ee magaalada kadib ayaa waxa fagaaraha kala hadlay bulshada maayirka degmada Burco barisaabka gobolka Togdheer xubno kamid ah wasiirada xukuumadda abwaano waxaana ka waran qiimaha ay u leedahay وحين صور قرنك الصومال صورنا يقوم أنت إسلك دلولين بدن دلولين كفايدة وين أطمئن سبحان الله يركب بورنا على قاس وحنليه خلوكم ورابو يروح حكومة مليان وساق عداد استري وحنا الصومال لان كتير عداد استري والماشي يراث بدي قروي والله ويكو حمان دونت انا ديار الله دفاع قرنك الصومال لا سبحان الله أنا أقول لا تنشره وأن أمد يا دون تونا وهين أيان وضع عارتين سياد بهو كنت أنجي وتكسرنا لا تنشره من هرت هذا ساك صوت ديار ما تيجين ولا ريال ما أنت روح نود بالدقينا ما أنتي قرن كجمهورية Somaliland أصنتليد ما أنتاس أو تاريخ ذا يصير كتبي iyo halgankii loo soo maray iyo burburkii loo soo maray wada haysan maanta oo ay 27 jirsatay oo inankii maalinta dhashay gaashaan qaaday oo uu isagu wax sii dhalay war miyaynu cabsi u qabnaa jiritaanka Somaliland war miyaynu maamul yar oo daciif oo Puntland oo kala baqo uga qabaan burcada cusubay burcada sashiidaysay taasaan soo taagnay reer burco dhalinyaro waliyaalka iga soo yeegayo ilmaha rayaal oo aabayaal burco bariga galbeed ma jirto eedin may waxa ku soo daba dhacdo aad qiimo badan oo soo beerato taariikhiya waxa weeyaan dagaal in la igaadiyay oo in naafeeyay magaalada burburay walaalo kale irdhoobay ayaa maalintaas ay midaysay way soo keentay min bari la galbeed waxay maalin ay dhamaanteen goosanay iyadoo odayaasheenu iyo salaadiinta iyo hogaasada iyo garaadadu ay warkacayaan ayaa dhammaan waxa lagu saxay magaalada Burco oo magaalada Joogo caasimada gobolka Togdheer waxa lagu ansixiyay oo lagu saxay maanta ay diin meeyta maalintii ay xorriyadeena qiimaha badnayd ee Ingiriiska ay ku helay maanta oo ay xafladii 18 May dabaaldegayno cadow ay nahay maanta cadow dawladeed bay nahay uma baahnin bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurtoona uma baahnin in mudaharaad laga sameeyo magaalooyinka waaweyn uma baahnin in meelo kale shaqooyin ka dhacaan hadday ka dhacaanna looga baahna in la buunbuuniyo eenka caatifiga ee qabiilka ee xun way uf la yiraahdaa uf ninka reer Burco degan Burco Togdheer ku faad Togdheerana in reer Burco ku faad ku diidimino laakiin waxaan hay waqooyigan ka yimid ama geedka hoostiisa ka yimid waxay runtii sidii loo sheegay burcadii hore dadkii hore reer Burco oo dhamaanteen ka soo wada jeedno ceeb bay ku tahay waxaas lagu baqlo ugu dambeyntii waxa kalmado hambalyo iyo dhiirigelin isugu jira u diray bulshada Somaliland madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaanu yiri waxaan maanta ku faraxsanahay Allah ku hambalyeeyo ummadda reer Somaliland in maanta meel walba ay joogaan ay uga dabaaldegayaan maalintii ay garteen in dib loo soo noqdo xorriyadooda oo ahayd 18 May 1999 oo laga dhawaaqay magaalada Burco ee maanta joogo anigu iyo waftigeegu oo nasiib u helay maanta inaan halka ka dabaaldegno meeshii laga dhawaaqay
aabbayaasheenka ka dhawaaqeen ee qaarkiin awoyaashiinka ka dhawaaqeen ilaahay baa mahadnaqaas waxaan leeyahay daba reer Burco hambaliyo gaar ahaan hambaliyo ilaa marka hore ciidamada qaranka ee maanta jiidda hore gacanta ka gartana soo weerartay sida wanaagsan u difaacay aad iyo waxa ugu dhiirigeliyeen daba joogno haddaynu raayso meelaha madaxda mijareen daba joogno inaan iyaga iyo carruurtooda daba joogno daryeelayno ayaynu aad iyo aad ugu buuxinaynaa waana ku hambaleynayaa inay darbaaxaada ku dhufteen adowgii ku soo duulay islaha ka faa'iidayso dabaaldeg bay ku jirtaa Soomaaliland maanta ka faa'iidaysa islaha وعبد القني عبد الله محمود عبد القني بافا warbaahinta SBS TV gudaha magaalada Burco